soo dhawaada laba muuqaal ayaan ku arkay social mediaha kolley dadka daawadeena commentskooda haddaad akhriday dadku aad u kala rayi duwan yahay labada muuqaal mid waa kii cabdimaalik muuse coldoon soo duubay oo inantan ayay ku saabsanaa inanta siday sheekadii nagu soo gaadhay $600 iyo $650 inta u dhaxaysa ayaa 5 sano loogu xukumay su-aasha koowaad ee igu soo dhacday waxay noqotay qofkii inantaa xukumayey ma aabihii bay dishay ma adeerkii bay dishay ma xoolay ka dhacday ma mag buu ka raadsanayey sidee wuxuu jiraan waayo dee caqligu kuma siinayo $600 inaad 5 sano qof loo xidho kaaga sii daranta markay wakhtigeedii dhammaysatay oo wakhti aad u badan oo dheeraada kadib 600 laga soo bixiyo oo qofkii dabadiisa lagu keeno waxaan garan waayay markaa anigu systemka la isku xukumo haddii ninkii markaa inantaa xukumay oo weli ka shaqaynaya maxkamadaha bal isweydii inta qof ee 5 sano waana muhiim in qofka laga saaro systemka waayo hadduu inantanba ku sameeyey dad aad u badan baa iyagana sidaasoo kale xaqdarro loogu geysan karaa mid baa jirta markaa haddii aan sheekadoo dhan laynoo soo gudbin waa halkeeda laakiin dee sheekadu intaa ku dhan tahay 600 ku dhan tahay waa in qofkaas deegaankii lagu xukumay isaga laftiisa waa in maxkamad la soo hor istaajiyo if iyo aakhiraba waa loo haystaa qofku waa xukumaya waa inuu cadaalad sameeyo weeyaan waa inuu eego qofkani muxuu awoodaa qofkani muxuu shaqo haystaa qofkani wax asada miyuu leeyahay ama wax loo hayn kara intuu deynta iska dhiibayo iminka inantaasi maskaxii way ka dhaawacantay jidh way ka dhaawacantay financially way dhaawacantay saad u eegtaba dhaawac weyn baa soo gaaray haddii qofkii la xidho dee qofki lacagtiis kama bixin karo carruurtiisina ma ilaashan karo haddii iminka inantaasoo kale markaa la odhan lahaa $10 bay wadaa ay ku siinaysa haddii ay tahay markaa in loo baahday in qofka la xidho dee xadhiggii lagu xidhayay qofka ma ka burinayaa deyntii lagu lahaa waa number 1 kalabaadna waxa weeyaan xadhigga iyo inta lagu leeyahay ma isu qalmaan sheekadu sida aniga igu soo gaadhay markaa waa ilaa 650 meelaha iyo adigu wax yar ka yar iyo 5 sano oo xadhigga iyo weliba 7 bilowda dheeraada ma laha dee waa xaqdarro waxaa kaloo iyana meesha jirta qofku markuu qof dan yara yahay qabiil male inantaas xun baa loola dhaqmay if iyo aakhiraba ninkaa waa loo haystaa iyo wixii la ogaa iyo wixii la socday iyo wixii xabsiga ku ilaalinayay intaba waa niyad jab dhaaftay hadalladii ay ku hadlaysana waxaa ka mid ahaa gabdhaha intaa leeg lama xidhi karo anigu waxa maa samayn khamri waddanka maa soo gelin xashad maa soo gelin gabadhu wakhtigeedu wuu iska yaryahay yacni waa dee dulmi aad iyo aad dadkiina hadalkooda uu gaadhi karo meel dheer ama ha noqoto inuu meyer gaadho ama ha noqoto inuu wasiir gaadho ama ha noqoto inuu qofka booliiska haysta gaadho ama maxkamadahaba ha gaadhe tanoo kale markaad aragtid waanaad ka hadashid waanaad iyaga u gudbisid waanaad dadaal samaysid waanaad wixii adigu isku daydo inaad saxdid waa dumarka soomaalidina waa dumarka hadduu wadan jiro iyo hadduu dad jiro iyo hadduu wax qurux badan jiraba iyagaa number 1 giddigood waa wada shaqaale giddigood waxbay erayaan giddigood reerkay wadaan giddigood marka waa xaqdaraniya waxaasi aad iyo aadna waa uga xumaa in intaasi ku dhacday waxaasi cabdimaalikna ilaahay ka khayr siiyo